shirkadda xawaalada Horyaal Online. Horyaal Online waa shirkad ka shaqaysa dhinaca xawaalada iyo sarifka lacagaha. Waxa ay ku caan baxday adeeg hufan, degdegsiinyo iyo waxyaabo badan oo ay kaga horeyso shirkadaha kale. meel walba oo ay eheladaada iyo caa'iladaadu joogaan, Horyaal Online waa ay ku gaarsiinaysaa. Horyaal Online waxyaabaha kale ay bulshada ugu tala gashay waxa kamid ah sarifka lacagaha. Haddii aad doonaysid in aad lacago qalaad u qaadatid meel ka baxsan wadanka UK, waxay ku sahlaysaa qaabka aad ku heli karto dhammaan lacagaha aad u baahan tahay. xawaalada Horyaal Online waa xawaalad dadka ka adeegta ay si weyn uga heleen. xarumaheedu waxa ay ku yaalaan Paddington iyo Finsbury Park magaalada London. haddaba ha moogaanin xawaalada Horyaal Online. waxaad kala xiriiri kartaa website-kooda horyaaluk.com iyo telefoonada number ee shaashada ku qoran. Horyaal Online. bishaaro bulshooy aduunkuna bilkhayr dhaha meel kastoo aad joogtaan waa xawaaladii London Express oo laamaheedu ku baahsanayeen dunida dacaladeeda. London Express waa laga maarmaan. London Express ma lugoyso aadmiga oo London Express waa lagu ladnaaday meel kastoo ay bulsho joogtaba. London Express qorshadeedu waxa uu yahay ku dirso oo ku qaado 3 daqiiqo iyo ka yar. xawaalada London Express waxay uga duwan tahay xawaaladaha kale iyadoo lacagaha gaarsiisa guri kasta iyo goob kasta iyo geedka hoostiisa meel walba dadku ay joogaan. London Express waxay ku shaqaysaa text message-ka iyadoo waliba dad badan oo lacagaha ku dirsaday London Express meel kastoo adduunyada ah ay ku liibaaneen libintiina ay haleeleen. bulshada meel kastoo joogtaan maxaa idin diiday si aad libinta u haleeshaan inaad la xiriirtaan xawaalada London Express. London Express. London Express. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon. wafdi ka socda midowga Yurub iyo beesha caalamka ayaa gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland iyagoo halkaasina wada hadallo kula qaatay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulkaasi. guddida u qaabilsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca ganacsiga ayaa kulan maanta magaalada Muqdisho kula qaatay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida iyagoo kala hadlayay hindisa sharciyeed cusub oo ku saabsan maalgashiga Soomaaliya oo dhawaan la doonayo in la soo saaro. intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobadii warka ugu doorka roona. markana warkii oo fidsan. wafdi ka socda midowga Yurub iyo beesha caalamka ayaa waxay gaareen magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland iyagoo halkaasina wada hadallo kula qaatay wafdidaasi mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulkaasi. haddaba wariyaheena nooga soo warrama magaalada Garowe Axmed Cawil Jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaya. wafdigan waxa uu ka socday midowga Yurub waxaana hogaaminayay Mike Scott oo agaasimaha guud ee Afrika. waxaana wafdigan garoonka Garowe ku soo dhaweeyay goobo ka mid ah golaha wasiirada iyadoo loo soo galbiyay aqalka madaxtooyada Puntland. markii uu shirkan uu soo gabagaboobay ayaa si wada jira waxaa saxaafadda ula hadlay madaxweynaha dowladda Puntland iyo waliba agaasimaha guud ee geeska Afrika ee midowga Yurub. madaxweynaha Puntland oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in ay wax badan ay isla fahmeen wafdigan. waxaana uu sheegay in shirka Brussels ka dhici doono ee dhawaan loo qaban doono dhinacyada Soomaalida uu muhiim u yahay dowladda Puntland. waxaana uu hoosta ka xariiqay in Puntland aysan ila ku litaan doonin shirkaasi Brussels ka dhici doona. aad iyo aad baan raalli uga nahay imaatikooda wafdiga ugu sarreeyay European Union ka yimaada. waxyaalaha inoola socdeen waa wax muhiim u ah Soomaaliya dhammaanteedba sida gaar ahaan Puntland. waxaana ay ahayd ajendada laga wada hadlay midda ugu horeysa sidii shirka soo socda Brussels la isugu tagaayo oo New Deal loo yaqaano nidaamka cusub wadamada ka soo baxay dagaalada sokeeye oo burbur ka soo baxay oo jilicsan
barnaamij loogu samayn lahaa horumarineed puntland diyaar bay u tahay inay shirkaas ka qayb gasho laakiin waxay kaga qayb gelaysaa magaceeda iyo statuskeeda kaga qayb gelaysaa haddii alla idmo balsada xasan sheekh kale sida media ka dhageystay 3 qaybood oo Soomaaliya ka qayb galaya uu yiri laakiin ka qayb galku waa inuu noqdaa wax u qalma magaca puntland iyo qiimaha ay ka leedahay Soomaaliya inay leedahay qiimaha la timaado madaxweynaha puntland dr cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole waxa uu sheegay in wafdigan ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa deegaanada puntland waxay tahay qaybta Soomaaliya dambaysa oo wax la tarin dawladii Soomaaliya 3 sano ka jiray iyo dawladii isticmaalka ka horeeyay waxba ay tarin ayay ka mid tahay intii ay dhisnayd 15 sano dadkii iyada u dhashay koonfur badan u dhashay ay jireen oo dib u soo noqdeen dib u dhis u sameeyeen dad badan oo Soomaaliyana ay ku badbaadeen oo boqolaal kun ah oo ay kala qayb qaateen noloshooda iyo caafimaadka iyo wixii dadkan xabad laga helayo nabadda kala qayb qaateen oo dib u dhis laga sameyn lahaa ayay noola yimaadeen barnaamijkaas oo Soomaaliya qaybaheeda kala gedisan ay ku mashquulsan yihiin in mid walba ay la timaado wixii iyaga oo ah waxa ay ugu baahan yihiin ugu baahi weyn oo ugu horeysa mashaariicda xagga kaabayaasha dhaqaalaha arrimaha socialka ama bulshada sida caafimaadka iyo tacliinta iyo wixii kale oo laga maarmaan la xiriira kulligood dhammaanteed agaasimaha guud geeska afrika u qaabilsan midowga yurub ninka lagu magacaabo Nicholas Westcott waxa uu sheegay in puntland ay ka taageeri doonaan sidii la dagaalami lahaa burcadbadeeda loo sugi lahaa ammaanka loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kaloo uu sheegay in ay aad ugu taageeri doonaan sidii dimuqraasiyadda puntland oo u sii socon lahaa waxa uu soo hadal qaaday shirka Brussels ka dhici doona dhawaan oo loo qaban doono dhinacyada Soomaalida. We discussed the state of European Union partnership with Puntland on the development programs that are underway, and we are pleased with the progress that has been made and the scale of those programs. Secondly, we looked at expanding our cooperation in the security area, particularly in relation to maritime security. And the presence of Ambassador Mossin of the UCAP Nestor Maritime Security Training Mission has enabled us to begin a discussion of deeper cooperation between us. It's given the importance of Puntland in the fight against piracy throughout the Somali region and the seas. warka kale naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan kulankii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada inay dood kulul ka yeesheen qodobadii dhawaan uu soo saaray guddiga qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka cunaqabataynta Soomaaliya iyo Eritrea. Faafahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdishakuur Shakra. kulanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maanta yeesheen waxa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid waxaana qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kamid ahaa amniga magaalada Muqdisho mushaaraadka ciidamada warbixintii dhawaan ay soo saartay kooxda monitoring group ansixinta hindisa sharciyeed ay soo gudbisay wasaaradda kheyraadka iyo sidoo kale agaasin cusub oo loo magacaabay tayeynta hay'adaha qaranka Soomaaliya kulanka golaha wasiirada oo saxaafadda dibadjoogka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday kadib waxa wariyaasha la hadlay Ridwaan Xaaji Cabdulle oo ah afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka cadanayna dhinaca ammaanka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa aad u faahfaahiyay arrintaas waxa uu sheegay in runtii ay dareensan yihiin dhibaatooyinka jira laakiin haddana ay jirto in si weyn loo xakameeyay ammaanka guud ee magaalada Muqdisho iyo meelo fara badan oo dalka ka mid ah waxa ugu weyn oo aan jecelahay inaan maanta idin la qaybsado in dawladda Soomaaliyeed ay markii ugu horeysay ku guuleysatay inay bilowdo mushahar iyadoo ay siinayso maaragtay ciidanka Soomaaliyeed mushaharkaas oo noqon doona $160 oo ciidanka xoogga Soomaaliyeed bilayska iyo nabad sugidaba warbixintii ay soo bandhigeen kooxda monitoring group ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa golahu waxa ay aad u dhageysteen oo warbixin ay bangiga dhexe Mudane Cabdisanaan oo si weyn u sharaxay kharashaadka iyo waxyaabaha bangiga sida uu bixiyay waxaana guud ahaan uu soo bandhigay in aanay jirin wax haba yaraatee dhinaca bangiga ku saabsan oo musuqmaasuq ama maaragtay khaladaad ah waxaa kaloo golaha wasiiradu ay maanta
ansixiyeen hindiso sharciyeedka shatiyada dhoofinta iyo soo dejinta ama waxaa loo yaqaano import iyo export iyo hindiso sharciyeedka sumadda ganacsiga ama trademark oo golaha wasiiradu ay si aqlabiyada u ansixiyeen waxaana dhowaan la horgeyn doonaa labadaas hindiso sharciyeed golaha baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu eegay waxyaabo fara badan waxa uu go'aansaday in la abuuro agaasinka qaranka ee horumarinta tayeynta hay-adaha dowladda. agaasinku waxa uu hoos iman doonaa xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka waxaana xilka agaasinku uu noqon doonaa in uu abuuro istaraatiijiyad iyo qorshe qaran oo la xiriira tayeynta hay-adaha dowladda in uu kala shaqeeyo wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda sidii tayadooda loo horumarin lahaa. inkastoo golaha wasiirada xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya maanta ay meel mariyeen qodobo muhiim ah isla markaasina ay ka hadleen qodobo loo baahnaa sida amniga oo kale ayaa haddana arrintaasi dhaqangalkeeda waxay u baahan tahay dadaal dheeraad ah. Cabdishakuur Xuseen Maxamed, Cabdishakuur Shakra, Kalson TV, Muqdisho. guddiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya u qaabilsan dhinaca ganacsiga ayaa kulan waxay kula qaateen magaalada Muqdisho xubno ka tirsan ganacsatada Soomaalida iyagoo kala hadlaya hindisa sharciyeed cusub oo markaa ku saabsan habka maalgashiga dalka Soomaaliya oo dhawaan dawladdu ay doonayso inay soo saarto. wariyeena Cabdishakuur Shakra ayaa warkan magaalada Muqdisho inooga soo diray. guddiga baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan ganacsiga ayaa maanta ganacsatada Soomaalida waxa uu kala dooday sida loo meel mari karo iyo waxyaabaha looga baahan yahay in laga bedelo hindis sharciyada waan ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga kaasi oo ku saabsan maalgashiga shisheeye ee dalka Soomaaliya. qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo kulanka maanta oo ka dhacay xarunta golaha shacabka hadallo kala duwan ka soo jeediyay ayaa waxa aragtidooda ay ku mideeyeen in loo baahan yahay in marka koowaad muhiimadda la siiyo ganacsatada Soomaaliyeed. waxyaalaha loo baahan sida taxadarka in loo fiirsado qayb kamid haddii aan tilmaamo waxay tahay kambaniyadu waxyaalaha ay xisaabaan marka waddanka ka tagayaan maalgelinayaan waxaa ka mid ah cashuurta kambaniyadaas runtii ay bixin doonaan waddanka kula geliska ama wadamada gobolka ku yaala way eegi doonaan cashuuraadka laga qaado kambaniyada tartanka qayb ka mid ah waxaa runtii lagu tartami doonaa waddan walba cashuurta uga qaaday inay tahay wax lagu degdegay oo dowladda aan ka sugaynin inay maanta soo bandhigto arrintan waayo annaga dalkaygii weli nabad kama wada jirto gobolladii iyo ma dhisna degmooyinkii lama dhisna. dood iyo falanqayn dheer kadib ayaa gudoomiyaha guddiga ganacsiga ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cabdilaahi Jaamac Xuseen waxa uu ganacsatada Soomaaliyeed u sheegay inuu jiri doono kulankan ka ballaaran oo loogu doodi doono heerka ganacsiga isla markaasina qodobada ugu muhiimsan ay yihiin waxa ay soo gudbin doonaan bulshada Soomaaliyeed. waxay ku jiraan competition meelaha kale dadka ku jiraan halkaan hadday masaaxa ka arkaan waagelinayaan hadday meel kale ka arkaan hore kale soo jiidana waa caadiga marka adduunku dadku waa isku fogayaan waxaa lagama maarmaha sharcigu inuu xeerinayo in ujeedada laga leeyahay oo inuu hanti sugan shiito inuu keeno isla markaas in danihii dadka Soomaaliyeed la helo inuu hantidii uu keeno ka sukow uu shaqo abuuro ganacsatada Soomaaliyeed ee ka qayb galay kulanka maanta isku soo duween guddiga ganacsiga ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa badanaa waxay isku raaceen in xeerka maalgashiga shisheeye uusan ahayn mid muhiim u ah dalka Soomaaliya xilligani halka guddiga baarlamaanka ee ganacsiga ay ku doodayaan in xeerkan uu dib u soo kicin karo dhaqaalihii burburay ee Soomaaliya. Cabdishakuur Xuseen Maxamed, Cabdishakuur Shakra, Kalson TV, Muqdisho. wararka ka imanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maamulka gobolkaasi ay iminka sheegeen inay wax badan ka qaban doonaan xaaladaha nabadgelyo darro ee ka jiraan deegaankaasi kadib markii dhawaantan la dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi iyo qaar ka mid ah dadka ganacsatada oo dhaawacyo loo geystay. haddaba wariyaheena Al Cadaala ayaa wararkii ugu dambeeyay magaalada beledweyne inoo soo diray. iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xarakada al-shabaab falal kala duwan ay ka geysanayeen gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta shir jaraad waxaa si wadajir u qabtay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqayo iyo waliba gudoomiyaha degmada beledweyne Cabdi Bishaar Aadan Rooha waxaana ay ka warbixiyeen falalka maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ay ka geysanayeen gudaha magaalada iyo sarakac ku yimid lacagaha dollarka Mareykanka ee laga isticmaalo gudaha magaalada beledweyne.
gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dowladda soomaaliya cabdi faarax laqanyo iyo gudoomiyaha degmada beledweyne cabdi bishaar aadan rooha ayaa sheegay in ay keysas u hayaan dilkii loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee maxkamadda degmada beledweyne sheekh xasan cilmi ciyow iyo weliba dhaawac loo geystay ganacsado caan ka ah gudaha magaalada beledweyne iyo sidoo kale bambaano gacanta laga tuuray oo lagu weeraray saldhig ay ku leeyihiin ciidamada dowladda gudaha bartamaha degmada beledweyne. run ahaantii howlgalka ciidan nabadgelyo ee degmada beledweyne waxaad ogtihiin in ay had iyo jeer u feejigiyihiin dhacdo kasta oo dhacdo ay ka daba tagayaan soona qabanayaan haddii aysan ciidamada marka hore u diyaarsaneen qaabkaas isagana nimanka ayaga laga soo qabteen marka lama dhihi karo annaga waa mataqaanaa gaabiseen sababtoo fal kasta oo dhaca markiiba waxaa la soo qabanaa qofkii geystay alxamdulilah ilaaha mahaddaas leh waxaan rabnaa markiina caalamka u sheegno gaar ahaan soomaalida iyo gobolka hiiraan nabadgelyada gobolku inay tahay 100% kuwa isku dayay inay ummadda carqaladeeyaan inaanay u suurtagelayn midda koowaad oo aan rabay inaan u sheego ummadda reer hiiraan waxaa albaabka laga furay oo runtii xafladiisa mar waan qaban doonaa xafiiska hay-adda nabad sugidda oo aad garanaysaan xagga shaqada amniga qaybta ka qaadan karto walillahi alxamdu dadaal dheer kadib waxaa la furayaa oo hadda diyaara hay-addii oo dibaba shaqo bilowday oo hadda raggii shaqaynayaan laakiin xafladdii aan isugu yeeri doono insha allahu oo waxaa xafiiskaas uu shaqaynayaa xafiiska hay-adda nabad sugidda waxaa kaloo ku soo kordhaya gobolka runtii shacabka reer hiiraan inay diyaar u yihiin kuwa dhagarqabayaasha oo raba inay markas waxyeeleeyaan inaanay fakanayn oo qofkii wax tuura ban ama qof waxyeeleeya oo shacabku qabanayo arrintaba bogaadinaynaa waan u soo jeedinaynaa sidaas ku wadaan oo qof ummad waxyeelay inuusan marna ku dhex dhuuman arrintaas iyada ah marka dhibaatooyinkii dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay tii aan hore uga hadalnay sheekha lagu dilay sheekh xasan allah yarxama iyo tii maaragtay shalay lagu dhaawacay ganacsada caanka xaaji qurow iyo bamkii xalay la tuuray arrintaas waxay ahayd arrin la rabay in lagu qalqaliyo degmada ama gobolka alla mahadiis shacbiga iyo ciidamada iskaashanaya kuwii falkaa ka dambeeyay gacanta lagu hayaa intooda badan inta kalena waa lagu daba jiraa oo raadkooda ayaa la hayaa gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dowladda soomaaliya cabdi faarax laqanyo oo shirka jaraa'id sidoo kale uga hadlay lacagaha sarakaca uu ku yimid iyo sidoo kale lacago falsa oo muddooyinkan kusoo qulqulayay gudaha magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in haddii 24 saac gudahood lacagaha cadcad lagu arko gudaha degmada beledweyne maamulka iyo ciidamadu ay amar u qabaan in ay lacagahaasi ay gubaan arrinta lacagaha faalsada ah runtii aadan uga xunnahay dhowr jeerna waa ka hadalnay shacbiga reer hiiraanna waa uga dignay in ay maaragtay iska daayaan dhibaatadaas iyada ah oo lacagtaas ay ka waantoogaan oo aanay qaadan lacagtaas waan ka hadalnay in la joojiyo waxaad moodaa qaabkii in la bedelay aanay joogsan ganacsatadiina aanay joojinayn moogtahay ay tahay in wax la dhowraya inay tahay dawla go-aanka marka soo baxay oo aan idiin sheegaya shacabka reer hiiraan waxaa weeye 48 saac oo ka bilaabata hadda wixii ka dambeeya qofkii lagu arka lacagta shakhsi bakhaar mid gaari gacan ku dildilinaya mid gaari dameer ku wada lacagtaas waa dembiile qofkii lagu arko ciddii bakhaar u taabayna waa laga qaaday waa la gubaya iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaanul kariim ayaa xarakada al-shabaab waxa ay bilaabeen weeraro kala gedisan kuwaasi oo ay ku beegsanayaan saraakiisha dowladda iyo weliba qaar ka mida ganacsatada degmada beledweyne ee gobolka hiiraan waa markii ugu horeysay ee maamulka gobolka hiiraan ee dowladda soomaaliya uu ka hadlo falalkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdirasaaq alcadaala telefishinka caalamiga ah ee kalsan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa wareegta uu soo saaray ku mamnuucay in xoolaha lagu qalo meelo aan ahayn kawaanada ka sharciyeysan maamulka gobolka banaadir wariyaheyna cabdifataax qoslaaye ayaa warkan inoo faahfaahinaya afhayeenka maamulka gobolka banaadir maxamed yuusuf cismaan ayaa maanta saxaafadda muqdisho waxa uu u akhriyey wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur talsan taasi oo ka hadlaysay guud ahaanba nadaafadda guud ee gobolka banaadir wareegtada ayaa lagu shaaciyey in laga bilaabo 30 luulyo sannada 2013 wixii ka dambeeya in aan xoolaha nool aan lagu qali karin kawaanada macmalka ee ku yaala degmooyinka gobolka banaadir
marka laga reebo kawaanka gowraca ee kawaan bari kaasi oo ku yaalla degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir in muddahana uu dayactir guud ku socday wareegtada ayaa waxaa lagu amray taliska ciidanka balayska gobolka banaadir taliska nabad sugidda gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir in ay gacan bir ah ku qabtaan cid alalay ciddii isku dayda in ay ka hor timaado awaamiirtaasi ka soo baxday maamulka gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir muqdisho ku taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir muqdisho ku taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar ee muqdisho og agaasimaha guud ee dowladda hoose ee xamar og xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir og taliska nabad sugidda gobolka banaadir og guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir og wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ujeeddo wargelin mas-uuliyiinta ee warqadani sida tooska ah ugu socoto waxaa la idin farayaa in aan xoolo lagu qali karin dhammaan degmooyinka gobolka banaadir laga bilaabo 30 bisha 7 2013 marka laga reebo kawaanka gowraca ee ku yaala degmada cabdilcasiis kawaankaas oo loogu talagalay in lagu qalo xoolaha si loo dhowro nadaafadda iyo caafimaadka bay'ada marka laga soo tago awaamiirtan ka soo baxday guddoomiyaha gobolka banaadir ee ku aadan nadaafadda guud ee gobolka ayaa marka aad dhex marto suuqyada lagu gowraco xoolaha nool ee ku yaala degmooyinka gobolka banaadir waxaa ka jirta nadaafad darri baahsan oo ay suurtagal tahay in ay ka dhashaan cudurro asiiba dadka ku dhaqan nawaaxiga suuqyadaasi tallaabadan ay ka soo baxday maamulka gobolka banaadir haddiise ay dhaqan gasho ayaa waxaa cad in guud ahaanba nadaafadda bulshada gobolka banaadir ay u muuqanayso mid soo hagaagaysa cabdirasaaq aadan quslay tv-ga kalsan magaalada muqdisho guddoomiyaha baarlamanka puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda puntland ayaa waxa ay maanta ka qayb galeen in mar kale dib loo bilaabo ololihii dabaysha cudurka dabaysha ee deegaanada puntland haddaba waryaheena nooga soo warrama halkaasi cawil cali jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaya daahfurkan cudurka dabaysha ee deegaanada puntland lagu daahfuray oo ahaa wareegii shanaad laguna qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee garowe ayaa waxaa furay guddoomiyaha baarlamanka puntland cabdirashiid maxamed xirsi waxaana wasiirka caafimaadka puntland uu sheegay in la talaali doono carruur gaaraysa 263 kun oo carruur ah munaasabadda daahfurka talaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamanka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo ku-xigeenadiisa shaqaalaha wasaaradda dhakhaatiir iyo hay-adaha WHO iyo UNICEF waa kan cabdirashiid maxamed xirsi guddoomiyaha baarlamanka puntland oo ka hadlaya daafurka cudurka dabaysha wareegiisii shanaad maanta halkan waxaynu isugu nimid culays muddo inaga maqnaa oo ah xanuunka dabaysha oo ka mida cudurrada khatarta ah oo yidhaahdo lixda dilaa mid ka mida ah lana caddeeyey muddo badan inuu dalkeenna ka maqnaa oo ina u soo noqday meelo badan oo soomaaliya ka midana sida hadda dhakhaatiirtu u sheegtay ee lagu sheegay inaynu wixii dadaala ilaahna dawaynta leh oo innaga kalaankeenna aan ka hawlgalno xanuunkaa dib u soo laabtay dalkeenna ayay muhiimadda maanta halkaa la isugu yimid arajmanka ay samaysay wasaaraddii dhakhaatiirtu aad iyo aad arrin dhaxalgal ah oo muhiima weeye dr cali cabdulaahi warsame wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegay in 5 casho ee soo socota ee uu socon doono wareegga shanaad ee talaalka cudurka dabaysha in la talaali doono carruur gaaraysa 263 kun oo carruur ah deegaanada puntland islamarkaana uu talaalku uu gaari doono goobaha fogfog ee laamiga ka baxsan sanadkan amaanaha xoolaha ee wareegiisa iyo hawlayaasha hore wuxuu gaari doonaa
kontontii ayaa howlgelaya. wasiirka caafimaadka ayaa waalidiinta u sheegay inay carruurtooda caafimaadkooda ay ilaaliyaan oo ay ka talaalaan cudurka booliyada ee dabaysha maadaama waalidiinta ay mas-uuliyad ka saaran tahay carruurtooda. muhiimadda iyo faa'iidada uu u leeyahay carruurta in laga talaalo cudurka dabaysha ayaa iyaguna waxaa ka hadlay doorada kale ahaa Dr. Sheekh Cali iyo Dr. Cartan. gabagabadii munaasabadda daahfurka cudurka dabaysha ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi waxa uu ilmihii ugu horeeyay uu afka ugu dhibciyay labadii dhibcood ee talaalka cudurka dabaysha. wareeggan shanaad ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland ay maanta daahfurtay ayaa waxa uu socon doonaa muddo 5 bariya. Awla Ali Jaamac, Kalsan TV, Garowe. qoysaskani u badan haween iyo carruur badankood ka yimid gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya waxa xilligan cabashada ugu daran ay ka cabanayaan tahay musqul la'aan soo fosaarta waxayna shaaca ka qaadeen inay duurka la aadaan xaajadooda. waa bari hore saaka ayaa waxa aan ku baqay kaamka qoto ku yaala bartamaha magaalada dalka ayaa laguna magacaabo kaamka Qorxe. kaamka aan ku sugnaa qadar daqiiqada ayaa waxa dadkan ay yihiin kuwa aan degayn guri caadi ah waxa ay degan yihiin guriya badankood ka samaysan qoryo alwaax dusha sare laga saaray laami yari. guriya qaarkood ma celiyeen qoraxda dabaysha faraha badan ee ka jirta gobolka iyo qabowga soo dhacay ka dambeeyay habeenkii kaasoo ah mid aan la isku halay karin marka laga reebo ruux ku jira guri qufulan. qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay TV-ga caalamiga ee Kalsan ayaa waxa ay sheegeen inay hay'adaha gargaarka ka codsadeen in la soo gaaraan gargaar bini'aadamnimo. marka labaatan dhowr barna waa iska xanuunsanaayo ma aragtay si kaamka ay sidoo kale warb uma hay laakiin jihadayna ka hadlayna kaamka meeshaan ay deganahay ugu baliya wax loo masiirin waa iska rafaasanahay mid kale suuqyada waa naga buuxaan meel afkiisana male waa ka darbiyaashi roobka laga dimisay roobka laga dimi على شوفي ayadana wax nama siiso meeshaana barakacaan ku nahay balweyna ka soo qaxnay ayadna wax maalmaha ayna siiso ma arkin laasa nadaafada muruqmaha hadda dhowna loo qoray muruqmaalkana wali raashin loogu siiyay waxna wali ma aqaadeen waxan aragnay mar ka warbixi saameesh shaan marka aan ka shan intii aan imid badana qibna ka gala jiray hore hal sano iyo barna kuma aan arag had meel laga gaajooy ayaa u ag tahay awalna meel waxay ahayd qayraysan alaabta ay timaado hadda waxa alaabtooda ku maqanta Ilaahay baa yaqaan si kastaba haatee magaalada gaalka ay waxa ay ka mid yihiin magaalooyinka sidii weyn ugu soo qaxeen dadkii naftooda kala soo baxay dagaaladii dheeraa u dhacay dawladii ku meel gaarka ee Sheekh Shariif Sheekh Ahmed uu gaaminayay oo garab xooggan ka helay ciidamada Amisom iyo kuwa Itoobiya iyo xarakada shabaab oo ka soo horjeeday balse qaar ka tirsan dadkaas waxa ay u noqdeen goboladoodii oo xilligan nabad lagu soo dabaalay cidlo foolay Kalsan TV gaalka ayo inta aynu ku soo gabagabeynayna daawadayaal warkii caalamka oo aanu si toos ah kaga soo gudbinaynay stuudiyaha Kalsan TV oo ku leeyahay magaalada London warka waxa idin socodsiinayay anigoo Cabduqaadir Nadaara waxaadna warkeena ku daawateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, Somaliland, Puntland iyo waliba qaybaha kale ee wararka caalamka iyadoo soo kalena aan idin kugu soo gudbinay qaybtii sportiga inta aan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo Ramadaan Kariim wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.